بسم الله الرحمن الرحيم وصل حيرك يمكن جدي arrimaha bulshada ayaa gacanta ku haya aniguna kama mid yihiin laakiin xeerka saxaafadda berigii horeysana xeerkii ugu horeeyay saxaafadda la abuuray ragii wax ka sameeyay baan ahaa markii dambe guddiga arrimaha bulshada amad markii dambe lagu sameeyay wax ka sameeyay baan ahaa xeerka saxaafaddu hadda la hayaa xeer muhiim ah weey muhiimada badan buuna xabaarsan yahay marka loo eego hadday tahay xuquuqda saxaafiga iyo hadday tahay xuquuqda dadku ku leeyahay saxaafadda waxa la ugu muhiimsan uu xabaarsan yahay waxa kamid ah inuu saxo xuquuqda ninka saxaafiga ay leeyahay oo ay kamid tahay inuu war helo inuu ninka saxaafiga xaq u leeyahay inuu war helo waxa kale oo kamid ah in ninka saxaafiga laga ilaaliyo inuu ku xadgudbo dadweynaha madaxda cid walba ama qof kasto muwaadin inuu ku xadgudbo isagana laga ilaaliyo waxa kale oo kamid ah muhiimadaha wax xabaarsan yahay waxa kamid ah iminka saxaafadda iyo waxa isku hadiya sharci isku CID-dana lagu xidhaa maxkamad baana la geeyaa waxa la geeyaa waxa ugu muhiimsan oo xeerkan saxaafadda waqtigan xaadirka gacanta lagu hayaa kamid ah waxa kamid ah inuu sameeyo commission ay saxaafaddu leedahay oo loo dacwoodo commission kaas oo xukuma laba waxyaalood baa ugu muhiimsan waxyaalo commission kaas xukumi doono waxa kamid ah inuu qaado dambiyada lagu gala saxaafadda gafafka saxaafadda ama waxaan ethics-ka loo yaqaano gafafka ay saxaafaddu gasho inuu ka garnaqo halkii mar walba maxkamad la geyn lahaa ama la xidhi lahaa oo markay maanta gaf saxaafadeed laga galo aan commission-ka u dacwoodo taa waxay saxaafaddu kaga raysanaysaa CID iyo maxkamadihii la geynayay waa in ka saxaafigii markuu gaf saxaafadeed galay iyaga loo geenaya dambi caadi ah markuu galo muwaadiniin ka mid ama wax dilo ama wax xado ama waxaas oo kale waxa kale waxyaalaha xambaarsan yahay kamida ee guddigaas muhiimadda leedahay waxa kamid ah inuu saxo ama ka shaqeeyo karateeriyada ninka saxaafiga lagu qaadanayo iyo tababaradiisa iyo aqoontiisa waxyaalahaas oo dhan inuu jeegareeyo waxa kale oo kamid ah commission-kaasu waxay sameyn doonaan institutionska saxaafadda la furanayo in iyaguna ay screen gareeyaan oo ay yaa wargeys furanay ya television furanay waxaas oo dhan inay screen gareeyaan ay soo maraan marka xeerka saxaafaddu in amad marweyn lagu sameeyo aad buu muhiim ah aniga saxaafadda cidina iga warramayso xeerka saxaafaddana 20 sanadood baan soo dhex jiray ilaa yoomana hada kamid baanahay muhiimad weyn buu xabaarsan yahay xeerka yar hore aanu sameeyay xeer yar oo iska fayga buu ahaa gentleman agreement buu ahaa barlamaankii waqtigaa joogay qolyaha saxaafadda isla gaadhay marka xeerkan maanta xeerkan maanta yaala halka yaala muhiimadaas wax xabaarsan yahay marka si kooban loo sheego arrinta waan qabaa arrintaas saxaafaddu waxa weeyaan dawlad ogtihiino horta marka hore gafafka mas'uuliyad culus baa ninka saxaafiga saaran ninka saxaafiga waa kan ninka soo madaxa intuu hortago waraysanaya interview gareynaya warka uu soo qaadaya waa ammaano waa inuu garanaya warku faafinayana kuma faafinaya waa inuu garanaya maxaa dambiya dhaawac u geysan karta marka saxaafiga waa inuu training ka qaba marka hore saxaafaddu waxa weeyaan talent way baanteena talent tahay oo qofkaas ma leeyahay mawhibadii uu saxaafadda ku hanan lahaa marka labaad waa inuu u tababaran yahay maxaa gaf saxaafadeeda maxaa dhaawac dadkaaga u geysanaysa waayo mas'uuliyadda ku saaran ninka madaxweynaha wasiirka xildhibaanka dadweynaha ganacsadaha taajirka habarta tamaandhada iiminaysa intaba warkaad ka qaadaysa waa aday ku hoos imanayaan waa mas'uuliyad ka saaran ninka saxaafiga waa inuu understanding u yahay waxa soo dhan marka waxaan leeyahay saxaafaddu waxay baahan tahay training fara badan bay baahan tahay tababar fara badan bay baahan tahay saxaafaddana waxa qurey laga faa'iido waxa weeyaan xoolo lagama faa'iideeyo waxa laga faa'iidaa qofku inuu ku tababarto maskaxdu ugu dhisanto uu tomorrow nin madaxa noqon karo fahmo mas'uuliyaddu waxay tahay saxaafaddu intaas ay leedahay marka waxaan leeyahay aad bay hadda u dayacan tahay waxaan oran karaa haadiyahan raawa ka dhigay imika saxaafadda baan oran karaa waxaan aaminsanahay xeerkaas wax weyn buu tarayaa saxaafadda markaan leenahay dabar baan u sameynaa in la xirxiro xorriyatul qowlka aynu awdna maaha laakiin waxa weey wuxuu soo saarayaa xuquuqda uu ninka saxaafiga inuu war helo u leeyahay iyo xuquuqda ay dadka uu wararka ka doonaya iyo bulshadiisa iyo mujtamaciisu ay ku leedahay ayuu soo saarayaa in commission-ka aan sheegay ama guddiga aan sheegay baana kow ka noqonaya executive-ka waxaan xeerkan fulinaya iyaga ay noqon doonaan oo waxay sababi doonaan in wasiirka aad gafka ka gasho iyo ninka saxaafiga ay ka wada dacwadaan commission-ka uu ku soo ogaado dambiye saxaafadeed ama gafaf saxaafadeed bay ka galeen marka anigu waxaan qabaa in saxaafadda wax fara badan tarayo aqoon ahaan iyo ethics ahaanba